ururka qaryadaada quruxso u taagan horumarinta iyo waxtarka dadka danta yar ayaa wuxuu booyada biyaha gaarsiiyay dadka danta yar ee degan xaafada Kutuula Barwaaqo ee magaalada Buuhoodlo sidoo kalena ururka ayaa wuxuu booyada biyaha gaarsiiyay dadkii laga soo barkiciyay magaalada Laascaanood oo degan xaafada Tuula Barwaaqo ururka qaryadaada quruxso ayaa wuxuu ku baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay soo caawiyeen walaalahooda danta yar ay haysan wax biyo ay ku shubtay fayskii labaad oo biyo dhaamin ah ka sameynayna laba goobood goobta aanu hadda joogno waa goobta kaamka Barwaaqo oo ay ku nool yihiin dad ka yimid koonfur muddo badan oo 20 sano gaadhaysana halkan ku noolaa dadkaas oo ay saameeyeen biyo yaraanta abaartu ay sababtay magaalada ka jirta waxaan u shubaynaa booyadan qaadaysa 45 foosto insha Allah hadii alla idmo madashan aad aragtaan ayayna biyihii kula wareegeen waxaan baaq u dirayaa guud ahaan hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya u gargaaridda arrimaha abaaraha iyo biyo la'aanta in badan oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan Buuhoodle hadda aad uga jirta iyo dhammaan qurba joogta bulshada qaybaheeda kala duwan ee muxsiniinta ee mar walba jecel in ay dadka masaakiinta ah ee dhibaatooyinku ay haystaan in ay soo caawiyaan halkan oo waxa way ay joogaan dad danyara oo runtii ay hayso xaalad biyo la'aan taas oo aan ugu baaqayno waxa weeye dadka inay soo caawiyaan runtii waxaa ka jirta biyo la'aan baahsan dadka danyarta biyo $5 iyo wax ka badan bay ku maraysaa halka foosto ee biyaha macaana meelo dhaadheerna wali waa laga doonayaa taasaa waxa weeye koosgaraysa inay qaali noqdaan marka dadka muxsiniinta ah ee waxaya annagu dadku maan wax u kala qaadnaa waxaan leenahay wax la soo baxa oo soo caawiya dadkiina waxa weeyaan awoodi karan inay biyaha la baxaan nimanka dhalinyarta ee la baxay biyahana maanta qaybinayna waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin ku daro ururka qaryadaada quruxso oo qaybinaya deeq biyo ah oo ay soo gaarsiiyeen kaam kamid ah kaamka ku yaala magaalada Buuhoodle biyahan sida shay waxa la baxay dad muxsiniin ah xaaladda lagu jiro Soomaaliya oo dhan waa xaalad abaar oo biyo la'aan ah biyuhuna waa asaaska nolosha ama waa shay koowaad aysan nolosha ka maarmin ururku wuxuu qaybiyay biyo badan oo kaamo kala duwan uu ka qaybiyay haddana waan sii wadanaa waxaan rajaynayaa inaad dinkuna ka qayb qaadataan dadka uu muuqaalkan soo gaari doono aad ka qayb qaadataan oo dadka abaartu hayso biyo la'aanta hayso aad kaga qayb qaadataan sidoo kale dadka deegaanka degan intaan qurbo joog loo qayla dhaamin dadka deegaanka degan ee awoodo iyagu inay birkadu biyuhu ku jiraan ee awoodo inay biyo soo iibsadaan inay iska warhayaan oo dariskooda ka warhayaan oo ay dadka isu maafalaan baan faraya ururkuna markasta wuxuu u taagan yahay inuu gacan qabto oo wax la yiraahdo uu garab galo dadka masaakiinta aan waxaysan aad ma joogna kaamka Barwaaqo ee magaalada Buuhoodle xaafadda Sayidka waxaanu biyo ku qaybinay oo dad masaakiin oo qaybinay annagoo ah ururka qaryadaada qurxiso oo inta badan ka shaqeeya baahiyaha arrimaha deegaanka oo aan 1 iyo 2 toon ahayn oo baahiyaha deegaanka oo dhan ah wada ogtihiin xaaladda deegaanku aad bay u adag tahay dad masaakiin ah oo biyo la'aan hayso oo biyaha maanta kala jecleen qaraar iyo macaan ururku wuxuu ugu deeqay biyo ee qurbo joogta leh deegaanku baahi baa ka jirta biyood oo aan yarayn baahida biyaha in dib loo eego dad baa jira biyo haysta oo deegaanka jooga iyo dad aan biyo haysan dad masaakiin ah jira oo biyaha aan helahayn marka dadkan masaakiinta aanu hadda la joogno kaamkan waxaa la dhahaa kaam Barwaaqo oo magaalada gudaheeda ku yaala waxaa degan dadkii ka soo qaxay koonfurta Soomaaliya oo ku dhawaad 30 sano magaalada Buuhoodle degan Maxamed Aadan Cabdille gudoomiyaha kaamka baan hay kaamka waxa la yiraahdaa kaamka Barwaaqo baa la yiraahdaa ururka muxsiniinta waan ku mahadcelinaynaa biyihii noo keenay waana soo gaareen waa ka mahadsan yihiin 100% aad baan ugu duceynaynaa waxay la soo baxeen aad baan ugu duceynaynaa maata badan caruur yar baa joogta biyaha qareerka cabaynin dadkana tabartooda u jeedaan hooyga ay ku jiraan oo u jeedaan buushtaha yar baa ku jiraan hooy fiican ma haystaan biyo awood fuusta ay kiibsaan fuusta waa $5 ma raahan $5 awood biyo qareerka ciyaalka yar lama siin karo way ku xanuunsadaan kulay ishiin baa idin macalin leh waxaan u baahanahay inaan la soo gaarsiyo caawinaadna la soo gaarsiyo Najaa Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga CBA magaalada Buuhoodlo